dhammaan asxaabta sharafta leh waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kiliibkaanu ma badna, waa kooban yahay. waxa uu ku socdaa maamulka degmada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. waxaan leeyahay sidaad og tihiin falal aan looga baran deegaanadan ayaa ku soo batay degmada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada. falalkaas oo ah kuwa la baabuuniyey intooda badan, oo ah in kufsi uu ka dhaco deegaanadaas. arrintaas shaki badan bay abuurtay. xog ururin badan baan marka samaynay. anigu xog ururin baan sameeyey. sidaas darteed wixii iiga soo baxay baan rabaa halkaan inaan ka soo jeediyo. maamulka degmada waxaan leeyahay hay-adaha dhinaca caafimaadka ee ka howlgala degmada Cadaado iyo nawaaxigeeda baaritaan ku sameeya. cidna ma dhaleecaynayo, cidna ma raba inaan eed dusha ka saaro, laakiin waxaan leeyahay waxaa jira hay-adaha caafimaadka dad ka shaqeeya oo dhaqaale ku bixiya baabuuninta iyo dhiirigelinta kufsiga. faragelin shisheeye ayaa jirta. hay-adaha caafimaadka ayayna soo maraan. sidaas darteed maamulka degmada Cadaado iyo laamaha amniga ayagoo kaashanaya laamaha amniga waxaa laga rabaa arrintaas inay u foojignaadaan, baaritaanna sameeyaan. waxaa jira hay-ado shisheeye dad u shaqeeya oo deegaanada u dhashay oo hay-aduhu ay ku maalgeliyaan oo shaqaale hay-adood ah, dhinaca caafimaadkana ka shaqeeya, shaqadooduna tahay in ay baabuuniyaan ama dhaqaale ku bixiyaan kufsiga. sidaas darteed waxaan leenahay wax kasta oo sumcadda dilaya deegaanada, wax kasta oo khilaafsan dhaqanka iyo shareecada islaamka, waxaa waajib ku ah muwaadin kasta oo deegaankaahu inuu ka hortago. mas-uuliyadda gaarkaahuna waxay saaran tahay deegaanka. degmada Cadaado ay saaran tahay maamulkay degmadu ay saaran tahay mas-uuliyaddu. sababtoo dalku fawdo maahan. dalku dowlad buu leeyahay, heer maamul buu leeyahay. sooma adnaan garan. waxaan leeyahay anigu cidna tilmaami mayo. xogta waa aan hayaa, aniga xogo badan baan hayaa.